gudoomiyaha degmada Cabudaq Mahad Cumar Cilmi iyo xubno kamid ah maamulkiisa oo maanta warbaahinta kula hadlaya xarunta maamulka degmada ayaa digniin u diray beelo iyo xubno siyaasiyiin oo maamulku uu sheegay in ay damac ay ka lahaayeen galmudug markii ay soo waayeen ay dib ugu soo laabteen degmada Cabudaq haatanna ay shirar iyo kulamo ay ka wadaan gudaha degmada ay ku abuurayaan qorshe galmudug iyo bulshada ay isaga horkeenayaan iyaga oo sheegay in ay wadaan abaabul iyo kicin bulsho beelaha iyo qaar kamid ah siyaasiyiinta loo digay oo horey uga hadlay warbaahinta qaar ayaa sheegay in dhismihii golaha wasiirada ee galmudug ee dhawaan la soo dhisay ay ka qabaan tabasho Axmed Falax oo ah ku-xigeenka madaxa arrimaha bulshada maamulka degmada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in aysan sax ahayn habka dadka qaba tabashada dhismaha galmudug ay u sameynayaan cabashada galmudug waxa lagu dhistay nidaamka awood qaybsiga qolo kastana waxay ku leeyihiin xildhibaano iyo golaha wasiirada cusub sidii hore awal sector-ka hore lagu qaybiyay ayadoo uu cuskaday madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo ku-xigeenkiisu ay raaceen habraaci hore oo galmudugta hore 2015 looga heshiiyay marka Soomaaliduna waa taqaanaayo markii ay qofku intuu nidaam raadiyo oo iska dhex arki waayo wuxuu rabaa inuu nidaamkaasi suuro foolxun ka bixiyo arintaasi sax maahan degmadan Cabudaq nidaam baa ka jira nidaamkaas waxaan rabnaa in qofkii shir jaraad qabsanayo oo ogolaansho ka helo oo la siiyo warqad ogolaansho oo uu ku hadlo dareenkiisa ku cabiro waa sax inay bulshadu hadasho oo dareenkeeda cabidho laakiin in la dhibaateeyo madaxda qaranka ceeb weeye deegaankana ceeb bay ku tahay annagana ka maamul ahaan iyo ka nidaam ahaan ma aqbalayna arintaas sidoo kale gudoomiyaha degmada Cabudaq Mahad Cumar Cilmi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dadka qaar ay ku jiraan qof dan gaar ah oo leeyahay uu rabo inuu bulshada u isticmaalo degmadani waa degmo Soomaaliyeed waa degmo lagu yaqaano dad Soomaali ah oo Soomaalinimada jecel oo dawladnimada waliba si dhow u soo dhaweeya ceeb bay ku tahay in qof guri ku xiran uu ka turjumo rabitaankiisa wax ku kooban uu uga turjumo bulshada inta dhan dhaqankaana lagu yaqaan wanaagsan waxa la rabaa in qofku danta gaarka ah uu leeyahay uusan ummadda uusan u isticmaalin qof maalin kasta iska lihi ma jiro shalaad waxa ahayd maanta mid kale wax noqonaya shalaa lagu la shaqeeyay maanta in la shaqeysaa laga rabaa waxaanu leenahay dadkaas arrimaha aad ku jirtaan ee aad madaxda dalka aad ku caayaysaan aad ku aflagaadeynaysan ma la idinkugu dulqaadan doono mana idinka aqbali doono waxaan kaloo rabaa inaan intaas ku daro dadka la qaldayo oo shacab weynaha awood qaybsiga maamul goboleedka galmudug lagu wadaagay maamul goboleedkii feyskii ka horreeyay intii la helay oo deegaankan uu ku lahaa dawladda ayuu maanta helay mana jirto wax maamul goboleedka uga maqan wax isaga reerkan dhexdiisa ku kala maqan soo jirta oo shalay ninkii waxa haystay maanta nin kala haysto waxa anaga dhexdanada ku kala maqan in dawladda lagu dhibaateeyo arrin sax ma aha gabagabadii ayaa gudoomiyaha degmada waxa uu faray hoteelada in ay ogaadaan shirarka iyo kulamada lagu dhex qabanayo oo qaarkood uu ku tilmaamay inaysan ahayn kuwa munaasaba dadka horeyna warbixin waa u siinay dadku ha ilaalsado meheradooda waxa laga dhex sheegayo inta shirarka jira lagu qabsado lagu caayo dadka oo wax aan u qalmin la oranayo ha ka fiirsadeen waxa ka dhacay meheradoodan ha ogaadeen haddaysan ogaanin saameyn bay ku reebi doontaa shaqadaas Cabdikariin Axmed Bulxan raadiyaha TV qaranka Cabudaq